بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه السلام يا وهذه السودة وينيا وجوهريو رئيس الوزراء دولة الفدرالية الصومالية مدن عمر عبد الرشيد علي شرماركة قدومي برلمانك يا مدحضة كله بيش عالمك يا صاحب بضيضة قبلك waxaan aad rabaa inaan ugu mahadnaqo sidoo kale intii isku shaqeysay soo qabanqaabinta xafladda quruxda badan oo ugu horeysa wasaaradda caafimaadka miidiyaha iyo sidoo kale askarta runtii banaanka u taagnay nabadgelyadeena inay sugaan dhammaantood aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan rabaa anoo ku hadlaya magaca dowladda Puntland inaan u mahadnaqo ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya oo halkaan nala jooga muddo 10 bari ah nagala shaqeeyay inay halkaan ka soo baxdo heshiis miro dhal ah Soomaaliya waa Puntland waa waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadnaqo wasiirka arrimaha dibadda dowladda Itoobiya saaxiibka iyo Dr. Tedros Adhanom oo u yimid in uu ka noqdo heshiiskan damaanad qaadaha koowaad inuu ka noqdo waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadnaqo SRSG wakiilka xogayaha guud qaramada midoobay Michael Keaton oo halkaan la yimid wafdi culus oo beesha caalamka oo ay ka mid ahaayeen wakiilka EU Michael Chervone ambassadorka dowladda Sweden Mikael Lindvall ambassadorka dowladda Talyaaniga Fabrizio Marcelli ambassadorka dowladda Imaaraadka Mohammed Al Uthmani iyo ambassadorka dowladda Turkiga Olga Bekir oo ayagu maanta laabtay waxaan rabaa sidoo kale inaan mahad gaar u celiyo wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika Francisco Madeira ugu dambeynna waxaan rabaa inaan u mahadnaqo saaxiibadayada IGAD oo runtii hawl culus ka haya gobolka gaar ahaan Puntland u haya saaxiibadayada ugu horeeyo xogayaha guud IGAD Maxbuub Macallin ambassador Maxamed Cabdi Afey ambassador Jamaaluddin ambassadorka dowladda Djibouti oo isla yimid maanta laabtay dalka Itoobiya u jooga oo matalaya wasiirka arrimaha Maxamed Idris Farax saaxiibadayada kale ee geela iyo gabra iyo kamid yihiin sidoo kale iyana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan sheego maanta heshiiska kan ka dhacay heshiis taariikhi ah weeye heshiis sameeyay weeye astaan cusub iyo sumad cusub u sameeyay Soomaaliya heshiis weeye aan aaminsanahay inuu waqtiga dheer iyo waqtiga dhowba u yahay horumar Soomaaliya iyo Puntlandba adkaynaya xoojinayana geedi socodka nabadda Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed labadaba waxaan leenahay wixii Soomaali u wanaagsan baa Puntland u wanaagsan wixii Puntland u wanaagsanna Soomaali waa u wanaagsan yihiin waxaan rabaa sidoo kale inaan caddeeyo haddii uusan heshiis dhici lahayn maxaa dhici lahaa weeye waxaa dhici lahaa in Soomaaliya si kala daadato in midnimada Soomaaliya ay daciifto in la waayo in dawlad ka dhalato 2016 keentana si socodka dawladda systemka hadda jira uu sii socdo inaha in waxa kale oo imaan kara waxay ahayd waxa la yiraahdo extension taasina aysan u cuntamin Soomaaliya iyo beesha caalamka labadaba wada hadalka iyagu iyo doodii dheereed ee Puntland ujeedada laga lahaa hal bay ahayd waxay ahayd in la cadeeyo la adkeeyo tamarqaad loo helo inaysan dib dambe u soo laaban waxa la yiraahdo 4.5 taas way tan aan beesha aanu ku saxiixinay hadda Puntland waxay haysataa tamarqaad dhab ah ee beesha caalamka wixii hadda ka bacdi xumaada ama dibtii timaada 2020 dii la gaaro dabcan mas'uuliyadeeda waxa qaadanaysa cid maanta damaanad qaadaysa weeye wayna saas ahaataa
dama waxa weeye sidoo kale waxay u baahan tahay si aan taabo looga fakerin 2020 sida saaxiibada ay sheegeen hadda inay bilaabato processkii iyo nidaamkii laga bixi lahaa 4.5 si doodaani aysan dib dambe ugu soo laaban insha Allah dadka Puntland waxa lagu yaqaanaa wadaniyad wadanigu mararka qaarkood waa dulqaad badan yahay dulqaadkiisana wuxuu keenaa marar badan in isaga la buurto oo mar walba la isku dayo in la riixo marka waxaan leenahay anaga Puntland hadaan nahay wadaniyiin waan nahay in badan waan la ku jiifsaday hadda dulqaadkii waa naga dhamaaday marka waxaan u baahannahay saaxiibadayo inaan hadda wixii ka dambeeya la isugu imaan wixii aan maanta ka hadlaynay iyo wixii qeylada yani walato ee dheer ka keentay dawladda Puntland inaan dib dambe loogu laaban ayaan rajaynayaa waxaan halkaan ka xusuus runtii aan aad ugu xumahay maanta in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka hordagay heshiiska taa waxaan arkaa inay ahayd runtii si ula kaca in la rabay in heshiiska loo fashiliyo heshiiskaas oo waqti badan ay gelisay dawladda federaalka oo ra'iisul wasaaraha meesha uu nala joogay iyo dawladda Puntland iyo beesha caalamkuba runtii arintaasi aad iyo aad baan ka xumahay runtii waxaan isleeyahay habdhaqanka noocaasina oo waxyaabaha keenay in 3 sano iyo barkii u dambeeyay Soomaaliya ay socon weydo meel la gaari weydo oo maanta wax aan ka hadlayno haddii la shaqeyn lahaa waqti badan la gelin lahaa juhdi la gelin lahaa commitment yani dhab ala imaan lahaa waxaan ka hadlayno iyo meesha aan joogno Soomaaliya meeshaan ma ay taaleen meel ka fiican iyo meesha istaahisho ay joog lahayd ayaan runtii anagu isleeyahay waxaan rabaa marka mar labaad inaan ku celiyo dadka Puntland u sheego waxa aan aqbalay 4.5 ma aha waxaan aqbalnay waxa weeye processkii iyo habkii looga bixi lahaa 4.5 way waxa aan aqbalay runtii taa weeye nuxurkeedu waxaan rajaynayaa insha Allah sida ku qoran heshiiska يعني لنا بندق الدورة دمانتي المركز سؤال جوكتان إنه كم وقته عدة هنا مشين كي آن لهين وجدلي آن لهين أو أحيد دورشة صوته وحكدم يلا وكن يلا بعتن إلا جارو نظام صحة عدالة كوفن قبيلة نظام بلد كل السندجان إلا وكن يلا بعتن Soomaaliya ay u guurto oo runtii meesha mar walba Puntland u socotay meesha Puntland ay rabtay taa weeye midda caawa meeshaan lagu saxiixay oo lagu damaanad qaaday guul iyo khayr baan rajaynayaa Soomaaliya ha noolaato Puntland ha noolaato waa mahadsantiin hadda waxaan ku soo dhaweynayaa wasaaradda dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Abdulsalaam بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله waxaan rabaa marka hore inaan salaan halka uga runtii aan salaamo wada mahad celiyo sidii yani biseelka ku jiray wadanada ku jirtay runtii madaxweyne Cabdiwali qoladiisa wasiirada golaha wakiilada inuu u joogo gudoomiyaha hadda iyo dhammaan shacabka reer Puntland ee muujiyeen 10 maalmood halka aan joognay iyo dhowr adeegii runtii aan wada sameynay ee ahayd in xal loo helo arrinta masiiriga ah ee dalka haystay in lagu gudbo 2016 waxaan rabaa horta inaan salaan ayaan meeshan ka salaamo wasiirka arrimaha dowladda dalka Itoobiya oo ah madaxa wasiirada arrimaha dowladda dalka IGAD wakiilka UN-ka iyo wakiilka African Union-ka wakiilka European Union-ka wakiilka IGAD xogayaha guud ee IGAD iyo wakiilka safiirka IGAD u fadhiya Soomaaliya iyo dhammaan safaaradihii maanta soo booqday ee halkan u yimid runtii inay taageeraan gacan ka siiyaan ballanqaadna u sameeyaan in wixii lagu heshiiyey ay noqdaan wax meel dhala waxaan rabaa fursadda inaan uga faa'iideysto oo aan runtii bogaadin u soo jeediyo madaxweyne Cabdiwali xukuumaddiisa qoladiisa wakiilada shacabka reer Puntland geesinoodii iyo ciidanka reer Puntland intaba geesinoodii ay muujiyeen iyo sidii ay iskaga dhiciyeen cadowgii ku soo duulay ee argixisada ah ee runtii ay suntada u qabteen arrintaas waa arrin lagu faano ayadoo iyo amniga ka jira Puntlandba oo wax Soomaaliya dhan ay ku faanayso
sida ogsoontihiinba markii saan la isugu daaho oo hadda dee caawa saacaddan joogno ogtihiin iyo ayaamahan fadhinay waxay mar kasta tusaale u tahay sida ummadda Soomaaliyeed markay timaado arrimaha masiiriga ah ee runtii dulqaad u yeeshaan u dhowr adeegaan si loo gudbo biseel badanna waxay la tahay madaxweynaha labadiisa gole iyo dhammaan shacabka reer Puntland way muujiyeen wadaniyad biseel inta ah in Soomaali aysan maanta meel ku harto ay jisan jirin ayadoo waqti adag la marayo iyadoo runtii amniga howl xoog leh ka socoto laakiin haddana ay muhiim tahay in laga gudbo 2016 dad badan oo maalintii halkan imaanayna yiri may amni kaliya la hayay yaanan wax kale la galin runtii waxaan rabaa inaan ku dhaho Soomaali waxay awoodaa amnigeeda inay adkayso doorashada soo socota ay gasho iyadoo aanan mana leeqsanayn annaga caawa heshiiska la qaatay waa heshiis maanta wixii ka dambeeyay looga baxayo systemkii muddada soo socday ee 4 sano markii hal sano ka hor xukuumadda ay timid waxyaabaha ugu horeeyay aan garwaaqsano wuxuu ahaa hal sano gudahooda ayadoo wax badan markaas laga gaabiyay in doorasho hal qof hal cod ay saddex karin waxaan markii isku daynay in aan markii abuurno wixii alla wixii mechanismkii suurtagelin lahaa in wixii la qaban karo la qabto bishii July ayaan waxaan qabanay shirka HLF-ka kaasoo aan ugu baaqnay dowladda Puntland iyo dowlad goboleedyada kale madaxdoodii in aysan dhici karin hal qof hal cod doorashadii ay laakiin loo baahan yahay dadka in la talageliyo si looga bixilaana war aanu iska siino maalintaas waa sameyn karnaa inaan dhahno inta siyaasadda hadda madaxda ka kaliya ha ka taliso waa ogsoonay markii dadka la warsanayay riskiga ku jiray iyo dadku sida ay markaasi warka ka soo noqonay laakiin haddana dimuqraadiyadda meel bay ka bilaabataa waa in meel laga bilaabaa in dadka la talageliyo dadka talada wax laga siiyo ayaguna ay yeeshaan fursad ay xildhibaanada berito ku soo biiday barnaamijka federaalka ay doortaan 2012 waxay ugu duwantahay sidii hadda dadkii ugu horeeyay madaxweynaha ay sheegeen waxa way awal odayaasha dhaqanka kaliya soo xidhi jiray hadda odayaasha dhaqanka wali marjaceen yihiin waxa kursi kasta dooran doonta erga lagu heshiiyay hadii la yiraahdo taas waxay keenaysaa in walow hal qof aan aysan dhicin laakiin haddana dadku uu tartamayo oo cod lagu kala badanayo arrinta masiiriga ah ee haddana haysata ee maanta lagu heshiiyay oo ballanqaad kala sameeyay processkeeda caawa ka bilaabanaya wixii caawa ka dambeeya waxa loo guuri doonaa hadii la yiraahdo in laga baxo wada qaybsiga 4.5ka farsamadaas iyo nidaamkaas 16 sano lagu soo socday mana aha nidaam runtii fiican oo dadku jecel yihiin laakiin haddana marka loo fiiriyo nidaamyada kale ee ah in deegaan wax loo sameeyo iyadoo aan la tirin dadka iyadoo aan deegaankaas boundarieskiisa la sameyn iyadoo aanan yacni reeraha degan iyo dadka degan aan la kala saarin ayaa ka soo galay khatar waxay keeni kartaa amni oo runtii gelisa dalka arrin markaas aan waqtigeeda loo taagnayn hadda mar hore inaan ku dheeraado waxaan rabaa reer Puntland madaxweynaha Puntland iyo shacabka reer Puntland iyo labada gol ee reer Puntland inaan ugu mahadceliyo sidii sharafta leh ee noo soo dhaweeyeen sidii wanaagsaneed iyo biseelka siyaasadeed ee runtii 10 maalmood hadda aan joognay aan kala kulannay waxay muujiyeen wadanimo waana arrinta laga sugayay markastoo xaaladda ay saan oo kala tagtana Puntland waxay muujinaysaa wadanid iyo biseel siyaasadeed وأقسمتين وهي كالن ليد كعيارتي إن فدرال لو صدوا على ذلكن حدا وما هذا له هو إن ستيتس كي فدرال خودن كي يقدم بيه وصعد حدا هي كده مريسة برلمان قوي حقوق نندون على أقل ومثلية ستيتس كا هي أقل مثلية شعبك
waxaan idin sheegayaa markii labada la isku daro aqal ee baarlamaanka Soomaaliya la yiraahdo wax 4.5 ma jirayso sababtoo ah si kala duwan ayaa lagu soo xuri doonaa labada aqal ee baarlamaanka marka maanta waxaa sharaf noo ah heshiiska halka ku gaarnay inuu yahay heshiis taariikhi ah heshiis ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Puntland iyo shacabkeedaba u noqon doona arrin yaani faa'iido baarlamaan Soomaaliyeed aan suuqin uu ka soo baxo dhaafiyo dalka dhibaatada iyo midda amniga midda siyaasadeed ee taala ku soo dawaala xasilooni waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo inuu waxda wixii ka dambaysa uu noqdo process degdega oo dalka kan amni ahaan iyo siyaasad ahaan ka saar xaalad degdeg waa mahadsantiin waxaan abuurhay inaan baad celiyo beesha caalamka oo macaaw runtii halkan u timid in ay damaanad qaado arrintan mar kastana gacan naga siiso in arrimaha Soomaaliya marka waa mahadsantiin madaxweyne gaas oo mahadsantahay adiga loo qolo runtii waana aad iyo aad u mahad celinayaa beesha saxaafadda iyo ummadda